السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحاب سيدة توسكا فيسبوك نوغا داوانيسا كسو دوادا مركلية برنامج كيني دودا برارو وهبين والبقو تلادا أفريقيا دا بري ساعدو مركي تاي سيغال كفي نمو أن توس إذن كل سعسينو دودا هنن انتي أنصور أفنا وحي كغاهل لين الموضوع اللي عديدا فريمها دق دقنينها كدقا يا أبارها قطرها يولي ما فتاهدها مركا أي سنبعين oo markaas la doonayo in muwaadiniinta la gaarsiiyo fariimaha degdega ah caaw barnaamijkeena baraaru waxaan ku qaadaa dhigi doonaa bal in muwaadiniinta Soomaalida ay fahmaan fariimaha la xiriira qataraha kadiga abaaraha iyo fatahaadaha waxaan jecelnahay intiina na dhageysanaysa in su'aashaasi wixii fikraad ka qabtaan aad noogu soo dirtaan fariinta gaaban oo lambarku uu yahay 28 eber golis ama hormuud ayaad ka soo diri kartaa telesom haddaad haysatana 395 fariinta markaa soo dirayso waa lacag la'aan mar kale aan ku celiyo muwaadin ma fahamtaa marka lagu soo diro fariimaha hordhaca ee kadiga abaaraha iyo fatahaadaha caawadoodeena waxa marti ku ah Cabdinaasir Cabdi Caruush wasiirka gargaarka iyo kahortagga masiibooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed istuudiyaheena Nairobi ayuu nala fadhiyaa Abuukar Albadri khabiir saxaafadeed wariye muddo dheer ka soo shaqeeyay warbaahinta Soomaalida Sweden ayuu khadka toos uga jiraa إبراهيم محمود وبيرلي مقالة أفقوية دقر بيرها أيو كشقايا وحونا أسو جوغي الرماها اللي حريرة وعي قلنت إيا فرماها الله دي ردتك بيرلي دا إيا دادك أبارها مركز اللوغة بقايو لما أنتين ودنا سنتين كسو نواذا دود دينا برارو ما 17 ما صنطا وأنا سلامة يا مرتدى كلا هذا ما صنطا إنت أنا وحكا لأقلي وحن جعلها بالمركة هو موضوعا فهم كيسا iyo ujeedka aan ka leenahay inuu nala socodsiiyo warbixin uu ka diyaariyay Cabdi Fataax Cabdulle oo ka tirsan bahda baraarug aalaaba waxaan uga doodnaa fariimaha horudhaca ah ee digniinaha qataraha sida abaaraha iyo waliba daadadka horay waxaan uga doodnay helitaanka fariinta iyo ku camal falkeeda ama ku dhaqankeeda caawa waxaan ka doodi doonaa marka aad fariinta hesho ma fahamtaa si cadna waxa ay ka hadlayso ma fahamtaa Soomaaliya xafiisyo kala duwan ayaa waxay diraan fariimo horudhaca ah ee ka digaya khataraha fariimaha si gaar ah waxa loogu diraa beeraleyda iyo waliba dadka reer miyiga ah si loo badbaadiyo naf iyo maalba waxaa jira fariimo fara badan oo dadka shacabka loo diro isla markaasna aan la fahmi karin fariimaha qaar waxay ku qoran yihiin cilmiyeedyo aad u adag oo aysan dadka caadiga ah fahmi karin kuwa ayaa ku qoran afguri halka kuwa kale loo qoro si aan cadayn kuwa ayaa ka socda ila aan la garanayn oo u muuqda inay yihiin kuwa habow ah arrintaasi waxay keentay ay ku dhaqmi waayaan isla markaasna aysan wax tallaabo qaadin marka ay fariimuhu soo gaaraan sidaasna ay ku saamayso khatartii looga digayay mar walba dooda waxaan ku casuunaa dad khubaro ah oo ku xeel dheer dirista fariimaha isla markaasna ka soo shaqeynayay arrimaha gargaarka iyo khataraha sidoo kale waxaan casuunaa bulshada qaybaheeda kala duwan ee ah dadka fariimahan loo dirayo dooda intaan ku jirno waxaad maqli doontaan xogta dadkii fariimahan loo diri jiray iyo sidoo kale talooyinka iyo aragtiyada khubarada ku xeel dheer dirista fariimaha digniinaha doodeenu waxay diiradda saari doontaa sida loo heli karo in xafiisyada kala duwan ay dadka bulshada ama shacabka u diraan fariin cad oo la fahmi karo isla markaasna ay ka dhalan karto in ay dadku naftooda badbaadiyaan dhageyste waxaan jeclaan lahayn in aan maqalno codkaaga fadlan nala wadaag khibradaada ku aadan fariimaha khataraha kadiga iyo sida dadka ay u fahmaan fariimaha adiga ku soo dhaca ee bixinaya digniinaha ma fahamtaa marka ay ku soo dhacaan fadlan ra'yigaaga noogu soo dir lambarka gaaban ee 28 eber waxaadna ka soo diri kartaa hormuud iyo goolis sidoo kaleeto telesom haddaad haysato fariintaada gaaban waxaad ku soo diri kartaa 395 dhammaan nambarada markaa fariinta ku dirayso waa lacag la'aan haddii aad awoodo oo aad haysato WhatsApp waxaad fariin ama cod noogu soo diri kartaa 25 eber 666 4 dhageyste fariinta
moobaylkaaga ku soo dhacda ee ka digaysa khataraha sida abaaraha iyo daadadka ma fahamtaa marka ay ku soo dhacdo wahgaag cabdifataax cabdulle aad buu u mahadsan yahay waa barnaamij soo saaraha doodeenna caawa ee baraaru waxaa kaloon dhegaystayaal idin xasuusinayaa barnaamijkan waxa uu ka baxa maalin arbacada idaacado ku yaalla dalka soomaaliya dabcan fariimo ayay dhegaystayaasha ku soo diraan fariimahaasi qaar ka mid a oo gobollo kala duwan laga soo diray ayaan caawa halkan ka akhrin doonnaa hadduu allaha awoodda la oggolaado balse marka hore aan ku bilaabay su'aasha ugu horraysa cabdinaasir cabdi caruush wasiirka gargaarka koonfur galbeed oo istuudiyaha ila fadhiya cabdinaasir ku soo dhawaaw baraarug su'aasha ugu horrayn ku weydiinayana waxay tahay maxaa keeni kara sacaadatu wasiir in fariintu ay noqoto mid aan la fahmi karin ama mid la fahmi karaba mararka qaarkood gobol kastana laga fahmi karo waa su'aasha aan rabno inaan wax badan caawa ka ogaano ma qof cilmi aan lahayn baa mise dhalinyaradaba intaba maxaa keena ubuucda su'aasha maxaa keena in su'aasha la fahmi waayo bismillahi raxmaan raxiim atoosh tiimka aad u mahadsan tihiin waan ku faraxsanaa caawa inaan ka soo qayb galo doodan muhiimka ah oo looga hadlayo qodob aad muhiim u ah arrimaha fariimaha bulshada la gaarsiiyo si ay u diyaar garoobaan khatara imaan kara horta marka hore waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo waxaa la sameeyey horumar aad u badan in dadka fariimo la gaarsiiyo oo la sameeyo sistemo oo kala duwan laakiin mararka qaarkood sida su-aasha hadda la weydiiyey waxaa imaanaya mararka qaarkood dadka inay fahmi waayaan sababaha keenayana waxaa inta badan muhiimaddeeda ay tahay iyadoo dadka marka hore aan la fiirin fahamkooda qaabka fariinta loo diraa noocay tahay iyo dhaqanka bulshada oo run ahaantii muhiim ah bulshada soomaalida bulsho muslim ah fariinta qaabka loo gudbinayo horta waa inay waafaqsanaataa dhaqankeena iyo diinteena waafaqsanaataa oo loogu gudbiyaa si dadka ay u fahmi karaan mararka qaarkoodna luuqadda soomaaliga maay ama maxaa tiri marba deegaankaas dadka ku nool in fariinta looga dhigo lahajada hoose ama ha noqoto maay ama ha noqoto maxaa tiri marka qodobada ugu muhiimsan oo culeysyada oo ka haysa dadka inay fariinta fahmi waayaan waxa waaye iyadoo aan la tixgelinaynin levelka aqoonta iyo fahamka bulshada deegaanada kala duwan ee fariinta ku socoto aad baad u mahadsan tahay abuukar baan rabaa inaan u baaqo abuukar albedri ku soo dhawaaw doodeenna baraarug ee caawa sweden baa joogtaa weriyaa tahay dhinaca kale macallin baa tahay muddana ka soo shaqaynayay wacyigelinta bulshada dabcan marka la yidhaahdo fariin la diro oo soomaali loo dirana qaabo badan bay qaadan kartaa ogaalkaaga intaad og tahay muddana aad ka soo shaqaynaysay arrimahan saxaafadda iyo wacyigelinta bulshada maxaa keena qofkii inuu fahmi waayo fariimaha ka digaya inay abaar soo socoto ama fatahaad uu soo socdo aadaa u mahadsan tahay marka hore tiimka barnaamijkan soo abaabulay waa idin salaamaya sidoo kalena wasiirka iyo ibraahimna waa salaamaya iyo dhegaystayaasha guud ahaan marka labaad haddaan su-aasha toos u galo qodobo dhowr ah ayaa jira oo fariimaha in la fahmi waayo qayb ka qaata marar badanna fariimaha waa la fahmaa marar badanna lama fahmo kuwa aan la fahmin sababaha keeno inay dadka fahmi waayaan waxaa ka mid ah tusaale fariin marka dadka loo diraayo loo digaayo digniintu naftirkeedii waxay u baahan tahay intan digniinta la samayn dadka loo digaayo in horta macnaha xaaladoodii iyo sida wax lagu gaarsiinayo la darso tusaale dadka deegaan gooni ah haddii ay masiibo kusoo wajahan tahay kaba soo qaad duufaano ayaa ka dhaca dunida soomaaliya way ka dhacaan deegaan gooni ah haddii la ogyahay duufaantaas inay waqti ka mid a waqtiyada kusoo aadan tahay ama roobab dabeelood kusoo aadan yihiin ama abaaro kusoo aadan yihiin waxaa la rabaa dadkaas in lala hadlo oo dadka deegaankaas fariinta loo sheego laakiin haddii ummadda soomaaliyeed oo dhan lasaga sheego waxaa laga yaabaa in ay fariintu ku dhex dhunto inta magaalooyinka joogta oo aan dadkii loo baahnaa fariinta gaarin arrinta labaad ayadana ka qayb qaadanaysa inaan fariimaha la fahmin waxaa ka mid a mararka qaar fariimaha la diraya ayaa tiro badan fariimo isbaryaac ah oo in badan oo ka mid ahna ay macnaha ka shaqaynayaan dadaan ehel u ahayn fariintii aan ogeyn dadka ay la hadlayaan iyo siday fariinta u gaarsiin karaan iyo siday u fahmi lahaayeenna aan daraasad ku samayno xog ka haysan ayaa mararka qaar fariinta inta lasoo siiyo fuliya
dadku waxay ku fiican yihiin fariin gudbiyuhu inuu professional u yahay fariin inuu gudbiyo qof miidiyaha ka shaqeeya fariin tabiye ahaa markuu fariinta wado audiencega ama dadka dhegaysan doona fariintan wuu daraasaynayaa wuxuu u sheegaya inuu daraasaynayaa qodob kale waaye taasna fariimaha inaan la fahmin keenta qodobka kale muhiimka ah waxaa waaye soomaalidu deegaanada ka kala duwan dadku marka annaga aan dunida kale la hadlayno waxaan dhahnaa dadku waa isku af waa isku dhaqan waa isku diin laakiin deegaanada qaar dadku isku af ma aha isku af maaha markaan leeyahay qaranka kama hadlaayo deegaan gooni ah hadda kaba soo qaad webiga hadduu lower shabeelle ku fataho oo dadka lower shabeelle fariin in la gaarsiiye la rabo inta muqdisho soo xigta oo jambiga muqdisho ka soo xigtana afka macnaha dhexe oo dalka lagaga hadlay fahmi karaan jambiga webiga haddii laga tallaabana wasiirkoo reer lower shabeelle ahaa meesha ku jiro oo ibraahina ku jiro dadka afafka kala duwan ay ku hadlaan dadka qaar aan tuulooyinkoodii iyo meelihii ay deganaayeen aan weli ka soo dhaqaaqin beelahoodii weli joogay beelaha ulama jeeda tii qabiilka beeshu waa magaalooyinkoodaas joogay ma fahmi karaan xataa afka maxaa tiriga ma fahmi karaan afka mayga af gurigoodii in fariinta loogu sheegay u baahan yihiin see lagu gaarsiinaa marka waa su'aal kale marka dadka lala hadlaayo xataa afka lagula hadlaayo fariinta inay fahmaan qeybay ka qaadataa waxaa kaloo qayb ka qaato aaladda lagu gudbinayo waxaa laga yaabaa ayadoo dad masaakiina oo aan heli karin koronto ama nalay shitaan fariin loo diraayo in tv la marsiiyo tvga maba arki karaan marka taas naftirkeedii ama internetka le in la iska geliyo oo raadiyaashii u fududaa inay ka dhegaystaan aan macnaha fariintii la keenin marka waxyaabo badan oo noocaasa ayaa ka qayb qaadanayo laakiin fariimahoo dhan lama fahmi karo lama dhigi karo dooda sidaas looma dhigi karee in badan fariimaha ka mid a waa la fahmaa in badan ka mid ahna fariin gudbiyaha ayaanba ahayn kii saxda ahaa ee loogu talagalay inuu fariinta gaarsiiyo muwaadiniinta u baahan fariinta taas naftirkeedii dadka fariimaha macnaha ku bixiya qarashaadka ee bulshada inay digniinaha gaaraan rabo oo ay ka mid yihiin maamulada uu wasiirka nagala joogo ayaa waxaa la rabaa inay shuruudaha marka horeba ku daraan ciidan fariin gudbiye ehel u hayn laguma siin karaba horta qandaraas ay fariin ku gudbiso warbaahinta ha loo dhiibo wariyaasha macnaha ha loo dhiibo ciddii ehel u ah ha loo dhiibo ciddii fariin sida loo gudbiye garanayso audience ama bulsho si loola hadla garanayso inay fariinta marka horeba qaado meeshay u wadana garanaysaa la rabaa ma ahane yacni hiddoobay haddii laga dhiga dee dadku mararka qaar waxyaabaha aad baad u mahadsantaa ustaadi si fiican oo quruxsan baad u dhigtay waxaan jeclahay inaan u baaqo ibraahim oo afgooya jooga ibraahim waan ku salaamaya kusoo dhawaa dooda baraarug dabcan adigu beeraleya tahay dadka fariimahan ay ku soo dhacdaa tahay beeraley kale oo aad saaxiibo tihiin ama jaarkaaga ahna way jiraan ood beeraha isla farataan maxaa keena in la fahmi waayo su'aal ama fariin la soo diro abaar ama fatahaad ku saabsan nactooshu aad u mahadsan tahay ka qaybgalayaasha barnaamijka igala qayb qaadanaya oo ugu horeeya wasiirka cabdinaasir iyo saxafiga abubakar su-aasha haddaa u guda galo oo ah maxaa fariimaha loo fahmi la'yahay gaar ahaan beeraleyda fariimaha digniinaha la xiriira abaaraha iyo fatahaadaha maxay u fahmi la'yihiin qodobo aan kala qaadaa midda koowaad oo ah number one horta fariimaha loo soo diro beeraleyda qaabka loo soo gudbiyo ama luqadda ay ku qoran yihiin oo maaragtay luqad aan ku habboonayn dadki ah sida ognahay beeraleyda 90% waa dad maaragtay iska beeraley ah oo aqoonsaas aad u tiro badan lahayn marka mushkiladda koowaad warka waxay tahay eraya qaara waxay ku qoran yihiin scientifically macnaha qaabkii hore sidii loogu soo qaadaa loogu soo gudbiyo taasoo caqabad ku noqota inay fahmaan maaragtay digniinihii iyo fariimihii loo soo dirayo midda kaloo ah muhiimka ah waxay tahay mostly fariimaha badanaa u yimaada waxay ugu yimaadaan qaab SMS ah SMS ku marka waa fiican yahay laakiin dhibka uu qabaa waxay tahay dad badan waxaa jira aan wax akhrin so marka fariinta dad loogu talagalay inay gaarto dhammaan bulshada qaar ka mid ah meesha ku dhumayso ah dadka aan wax akhrin tusaale oo kale ayadana waxay noqonaysaa caqabad iyo mid uu maaragta aan ku raacsanahay uu sheegay saxafiga oo ah fariimuhu aad u tiro badan fariimaha aad u tiro badan baa lasoo diraa qofka marka waxaa laga yaabaa inuu aad ugu jahwareero midoo decision ku qaata midoo go-aan ku qaato inuu waayo matanaa saxan ma midaanaa saxan waxaa laga yaabaa macluumaadka ay soo wada gudbinayaan inay aad u kala duwan yihiin marka labada qodobada ugu weyn isleeyahay waxaa waa number one maaragtay in midda maaragtay qaabka loo soo gudbinayo ama fariinta qaabka u qoran tahay in ah mid aad u adag iyo midda kale oo ka muhiimsan oo ah in wixii
tusaale maanta qofka afgooy beerta ku leh iyo qofka maaragtay somaliland oo kale beerta ku leh sina isku cimilo maaha dabcan so fariimihii inay waxay mostly si generaala loo soo diraa oo maaragta dadku isku cimilo maaha isku xaaladna maaha iyo in specific laga dhigo fariimihii specific maaha oo si gaar ah looguma soo diro marka intaas ugu muhiimsan isle aadaan u mahadsantahay ibrahim aad baad u mahadsantahay waan kugu soo noqon doonaa dhegaystayaal waxaan idin xasuusinayaa barnaamijkan doodaha ee aan uga hadlayno fariimaha khataraha kediga inay ka baxaan ilaa 15 idaacadood oo Soomaaliya ku yaala idaacadahaasi dadka markay dhageystaan fariimo ayay soo diraan su'aalahana way ka jawaabaan fariimahaas ay soo direen qaar kamid ah ayaan jeclaa inaan halkan ka akhriyo radio Garowe dhageyste fariin u soo qoray magaciisana la yiraahdo Cabdirasaaq Axmed wuxuu yiri waxaan joogaa xaafadda Waabari fariimaha digniinaha ee ka hadla abaaraha waan helnaa buu yiri waxaan ka helnaa idaacadaha iyo dawladda oo had iyo jeer wixii khatar ahba kediga Cabdirasaaq Axmed aad baad u mahadsantahay waa ku salaameynaa wuxuu joogaa Garowe xaafadda Waabari ayuu joogaa doolow oo gobolka Gada ah dhageyste ka soo qoray fariintiisa waxa uu yiri abaar ayaana haysa hanala caawiyo xaaladdu way nagu adag tahay mana arkin wax dawlad ah oo noo yimaada fariintan waxaan ka dhageystay radio Garowe ayuu yiri aad baad u mahadsantahay abaartana Allah ka bixiyo ayaan leeyahay dhowr fariimood oo kale oo idaacadahaas naloo soo marsiiyay ayaan akhrin doonaa waad ku mahadsantihiin dhageystayaal waxaan idin xasuusinayaa inaad fariimihiina ku soo diri kartaan fariinta gaaban ee lambarka uu yahay shaashada saaran cinwaanka lambarkana uu yahay aad noogu soo diri karto 28 eber haddaad haysato golis ama haddaad haysato WhatsApp numberkaagana aad noogu soo diri karto shaashada lambarka saaran oo 2527 eber eber 6664 ah codaad noo reebi kartaa ama fariinaad noo reebi kartaa muwaadin ma fahantaa marka lagu soo diro fariimaha hordhaca ah ee abaaraha iyo fatahaadaha aad baan idin salaamayaa doodeeni baraarug ayaan weli bartanka kaga jirnaa waxaan jeclahay inaan u baaqo su'aasha kale oo aan Cabdinaasir wasiirka gargaarka koonfur galbeed oo ila fadhiya aan weydiinayo saacad wasiir fariimaha digniinaha marka la dirayo bulshadana loo dirayo yay tahay cidda u horeysa ee hesha si cadse ma u fahmaan dadka marka u horeysa ee ay gaaraan fariimahaasi horta fariimaha sida wariye albadri sheegay ibrahim sheegay fariimaha waxay ka imaanayaan meelo kala duwan ay ka imaanayaan ama channelska aad u badan dad kuwa ku habboonay ah kuwa aan ku habboonayn ah arrinta oo ka hadla albadrina ru'aanti waa aadan u soo dhoweynayaa in la xakameeyo xogtan la bixinayo maxaa yeelay aaminaadda waa aaday muhiim u tahay haddii dadka ay helaan xogo badan oo xogahana aysan noqonin xogo sax ah waxaa meesha ka baxaysa kalsoonida bulshada ay ku qabto xogaha loo soo dirayo ama ha ka imaata dhinaca dowladda ama ha ka imaata dhinaca hay-adaha marka horta qodob aad muhiim ah waxaa waaye in la xaqiijiyo meesha ay ka imaanayaan lana aruuriyo oo hal meel ama laba meel oo la wada ogyahay xogaha ay ka imaanayaan marar badan atoosh waxaa dhacda in fariimo bulshada loo gudbiyey aysan sida loogu talaga u dhicin tusaale ahaan waxaa laga digay ayaa dhow dabeelaa laga digay dabeelihii laga digay oo la yidhi soomaaliya baddeedii ku dhufanayaan arrinta sidii loo sheegaya uma aysan dhicin waxyaalahaasoo kale xogta qaabkaas loo gudbinayo waxay bulshada ku abuuri kalsooni darro marka waxaa la rabaa xogta horta la diraayo in aad looga fiirsado qof ku habboonaa uu diro marka sababta xogta dadka inay fahmaan ay fahmi waayaan keenaysa waa qaabka xogta loo gudbinayo iyo sourceka uu ka imaanayo iyo qaabka bulshada loogu sheegayo tusaale ahaan annaga fariimaha aan gudbinayno waxaan u gudbinaa dadka haddaad ahdid waxaasaa dhici doona waxaa imaanaysa arrin fahamkooda ah annaga islaamaa nahay see ku ogaatay inay waxaan dhici karaan ma wax sii dhici karaa ogaan kartaa bini aadanaa tahay marka si taas looga leexdo qaabka aan u qorno waxaa ka mid ah ahno xogaha aan helno waxay sheegayaan tusaale ahaan inay dhici karto arrintaas bulshadana ay ka diyaar garoodo laakiin haddaad dhahdid bisha soo socoto 10keeda habeenkii 4 saac habeennimo dabeelaa ku dhufanaysa deegaankan waxay keeneen dadka inay ku challenge gareeyaan ay dhahaan xogtaas qof bini aadan ma ogaan karo marka waxaa la rabaa qaabka xogta loo diraayo inay noqoto qaab dadka dhaqankooda iyo diintooda cabdinaasir aad baa maasanta qodob muhiimad ka dhawaajisa hayga dheeraanin ii soo noqo waxaa tiri marka fariinta la qorayo qaabka loo qaabaynayo
waxay ka qaadataa tusaale fahamka qofka Soomaaliga ah bal noo sii jilci horta bulshadeena marnabada ku celinaa dhinaca dhaqanka diinta ayagoo aaminsan diintooda waxaa la rabaa qaab dhaqankii iyo diinta la jaan qaadi kara fariinta inay noqoto oo dadkana ay fahmi karaan luuqadda ay ku hadlayaan af Soomaaliga maxaa tiri ama sida albadri u sheegay luuqad gurigooda in fariinta lagu gaarsiiyo laakiin haddii qaabka western oo kale dadka fariimaha loogu qoro oo la dhaho waqtigaas exactly time waxaasaa dhacaya waxaa imaanaya dadka inay ka shakiyaan maxay awoodda qofka uu leeyahay oo fariintaas uu ku gudbi karo marka in loo qaabeeyo qaab dhaqankooda iyo fahamkooda iyo diintooda la jaan qaadi karta aad waa mahadsan tahay dadka fariimaha raadiha ku soo diray waan idin mahad celinaynaa waan aragnay dhammaan fariimaha aad soo dirteen qaar ka mid ahna halkan ayaan ka baahin doonaa waxaan jecelnahay fariin kale inaan halkan dhex marino haddii aad joogto ama saameyn ay kugu yeelatay khatarahan hadda jira ee abaaraha ee dalka laga digayo oo aad gaartay meel magaalo ah waxaad la xiriiri kartaa xafiisyada dowladda ama hay-adaha caalamiga ee samafalka ee abaarahan hadda socda qaybta ka qaadanaya sida hay-adda cunnada adduunka ee WFP hay-adda caafimaadka ee UNICEF hay-adda beeraha ee FAO hay-adda Save the Children oo arrimaha carruurta ku tacalluqa dhammaantoodna waxay qayb ka qaadan hayaan hay-adahaasi la tacaalidda iyo u taageeridda dadkan abaaraha ay saameeyeen aad baan idin salaamaynaa dhammaantiin waxaan jecelnahay qof fariintiisa raadiha noo soo mariyey inaan halka ka sheego radio Kismaayo iyo ninkan fariinta noo soo mariyey wuxuu yidhi macallin mahad aadan baa la yidhahdaa Kismaayo joogaa waxaan ku talin lahaa buu yidhi in dadka Soomaaliyeed ay ka faa'iidaystaan fariimaha iyo talooyinka wax ku oolka ah ee kaga imanaya dhammaan qaybaha bulshada mideeda kale waa inaad ogaataan in abaaraha iyo fatahaaduhu ay yihiin imtixaan ilaahay lagu sabro ilaahay ummadda ha ka saaro abaarahaasi aad baan idinku mahad celinayaa abubakar albedri baan u baaqaya oo aan jeclahay isla su-aashii wasiir cabdi caruush inaan weydiiyo ustaad waxaa jira fariinta marka loo dirayo yay tahay qofka ugu horeeya inuu helo ay tahay marka fariin digniin soo socoto ama qatar ama abaar ama fatahaad midda kale ee isla su-aashaas la xiriirtana waxaa waaye fariintaasi midda maxaa loo fasiran karaa ma loo baahan yahay in fasiraad kale loo sameeyo aadaa u mahadsan tahay fariintu horta yay tahay inay gaarto hadday tahay fariintu waxay ku socotaa mar walba dad gooniya fariin guud ahaan macnaha way dhacdaa mararka qaar wax dalkoo dhan saameynaya laakiin markay roobab yimaadaan oo roobabkaasna fatahaado ay ka dhalanayaan dad gooni ah oo weliga qarkiisa degan ama meelaha togaga waaweyn agagaarahooda degan ayaa u baahan in fariinta la gaarsiiyo marka ayagaas ayay tahay inay gaarto waxaa la rabaa abaar hadday tahay oo laga baqaayo deegaanada qaar in roobkii uu baaqdo abaare ay ka dhacaan eriyadaas loogu talagalay fariinta inay gaartaa la rabaa oo qofka uu macnaha meeshaas ku wajaho fariinta mararka qaar dhibaatooyinka dhaca waxaa ka mid ah fariimaha aniga miidiyahan macnaha ka tirsanahay waxaad arkaysaa fariin loogu talagalay saako ama baar dheere ama xudur ama waajid ama baydhabo qof jooga inuu dhegaysto oo lagaga digaayo macnaha in dhallinyarada yaryar ay ka macnaha feejignaadaan in amni darrada ama waxyaabahaas loo qorto ayaa xamar idaacaddahay ka baxaysaa idaacaddaas xamara fariinta laga sii daayey hadhow waxaa la leeya waa la sii daayay okay xamar idaacadda ku taallo waa fiican tahay laakiin waxaa kaga sii habboon idaacadda baar dheere ku taalla inay sii dayso ama tan ku taalla baydhabo sii dayso ama tan ku taalla meelba meeshay uga dhowdahay fariinta in lagu gaarsiiyo qofkaas goonida loola hadlaayo in horta fariintii xataa tebinteedii la geeyo ayaa muhiima marka yay gaaraysaa waa qofkii loogu talagalay inay gaarto ayay gaaraysaa sababtoo ah haddii baahi fariin aysan jirin macnaha maba la sameeyeenba baahi fariin maba imaan kartaba haddaysan dad meel gooniya jooga oo xaalad ay ku soo socoto aysan jirin marka dadkaas meesha goonida ku sugan xaalad gooni ay soo wajihi karto oo looga digaayo ayay tahay fariinta inay gaarto dadka ehelku waa inay gaarsiiyaan marka in fariimaha ay marsiiyaan hay-adaha iyo maamuladaba ayaana muhiim ah sababtan koodii u lahaa fariimaha dadka la marsiinaya in macnaha la xadido ayay u baahan tahay
ulama jeedo in dadka afka la qabto oo shaqooyinka la xadido kama wado laakiin fariin kasta deegaan kasta iyo nooca fariinta waxay u baahan tahay dad u ehel ah inay tabiyaan si dadkii loogu talagalay u gaarto dadaalkii la bixiyeyna uu u miro dhalo marka hadba qofka markaas ama bulshada dhibanaha noqon doonta ee loo arkay in fariin la gaarsiiyo ayay tahay inay gaarto cabdirasaaq mahadsanid أبو كرعت بعض ما هستنتهي إن وحي آدي دونا إن أفقين آدي دونا لكن وحن جعلها اللي عبد الله آدم أو فكر كيس فيسبوك كوسو ديبتي آد بعض ما هستنت عبد الله آدم وعيد صاحب وانكو سلامي هرتا سلام الله وانكا قاضي وحي لا تهي بيري مدة هرنعة فرنت هرنعة يولد جيدا ومد أن وناكسنين سببتو وأرين قيالي أيويري سؤال شاسن جعلها وزيرك إلى فريا إن دقيتها في عبد الله آدم جواب تضوها يتمعيتها وكلها وقيالي فريمان أبارها كدقيا عبد الله وما تصنتهي فكر كاس أرنتا أتكلم بتي هرتا أرمها فريمها wax wadankeena kali gaaro amaaha wax adduunka oo dhan laga isticmaalo waay marka dhinac waxay anfacay qofkii inuu diyaar garoobo oo ka hortag sameeyo run ahaantiina ilaa xad waa lagu faa'iiday dadka in ay fariin haystaan inay ogaadaan waxyaalaha imaan kara dadka waxay ku nool yihiin waxaa laga yaabaa meelaha ay ku nool yihiin meel aad u nugul roobabka xooggala ha noqoto fatahaadaha ha noqoto abaaraha haddii biyo la'aanta jirto ha noqoto marka fariintan ujeedada waa qofka inuu xogta helo xogta markuu helo qofkii wuxuu awood u yeelaa go'aankii inuu asaga gaaro qofki waxaa laga yaabaa inay go'aankaas uu qaato inuu dhaho meeshan waa ka tagaa meeshaasaan aadaa waqtigaas ama ilmahayga saana u samaynaa laakiin ujeedada go'aan ma aha ujeedada waa qofka inuu information ka helo informationkaasna uu isticmaalo sida uu macquulsan وانا مرات كاي ما ادعي سؤال في عنه معقول انا مسوي ديس هذا ما تنتهي ادبد وما تنتهي ابراهيم سو دواو ابراهيم او افغوي جوغا بيرليا تهي ان اسل سؤاشاس iyada dad badan ba aaminsan waxan inay qiyaali yihiin en fikirkaas meesha looga saari kara toosho aad u maasan tahay si guud horta fariimaha maaragtay loo diro beeraleyda Soomaaliyeed ee ku aadan abaaraha iyo fatahaadaha runaantii sababta ugu weyn aslee horta waxa loo maaragtay dadku aaminay inay khiyaali tahay waa aaminaad iyo horta dadka ka dhamaatay oo ah for example tusaale dadka soo diro fariimaha ama dadka loo soo dhiibo waxa aslee mushkilad ugu weyn ayaga abuura oo fariintii si la rabay dadka u gaarsiinin tusaale qof aan luqad English fahmaynin oo kale ama luqad Soomaaliga oo aad ku adag fahmaynin in fariin loogu soo diro qoraal ha ahaato ama maaragtay mid maqal ha ahaato qofka marka wuxuu ku abuuray shaki ah in fariintan horta inay tahay maaragtay wax sax ah iyo sida deetan u sheegnaba fariimiyo aad u tiro badan oo maaragtay kala nooc ah kala maaragtay kala ra'yi ah oo boqolkiiba 90 been ah soo marka qofka beerleydahay markuu arko waxa soo fariina oo socdo tusaale hadii la yiraahdo maaragtay fatahaadaha soo socda aad u tiro badan oo intaas oo maaragtay source ay uga yimaadaan waxa laga yaabaa inaysan kala bar imaan markuu arko inaysan fariimihii kala bar sax ahayn marka waxa laga yaabaa inuu wax khiyaali u maado oo kaliya wax la iska soo diro oo iska soco ah inuu u aaminaan laakiin waxa isleeyahay boqolkiiba hadda markii sanadahan dambe loo fiiriyo waa laga faa'iiday boqolkiiba 90 aad looga faa'iiday maxaa yeelay waxaa jiro beero run ahaantii aanan tusaale ceelal lahayn oo mostly ku tiirsan roobka ama ku tiirsan maxaa la yiraahdaa biyaha webiga qofkaas oo kale markuu fariin sax ah oo maaragtay uu fahmi karo loo gudbiyo waxay ka caawinaysaa tusaale haddii abaaro soo socdaan oo kale inuu maaragtay wax u sii diyaarsado abaarahaas haddii beerley uu ahaa in beertii wax badan uu sii beerto ama wixii uu ku survive garoobi lahaa uu sii diyaarsado haddii xoolo leeyahan tabtaas oo kale in calafkii inuu sii gato ama kiisi inuu meel sii dhigto oo intuu qalajisto meel sii dhigto marka waxa isleeyahay xaaladdan hadda la joogo fariimaha run ahaantii aad bay muhiim ugu yihiin dadka oo ma dhihi karno wax khiyaali ah laakiin sababta ugu weyn dadku aaminayaan waxa isleeyahay dadka fariimaha loo soo dhiibay oo sabab aad baa u maasanta أدو ما كنت إبراهيم وحنجعلنا هاي إن إذن حصوصينه فريمها هذا هالكن نوجود صدرتان إيه فريمها إذا عذاها صومالي وكيال نوجود صدرتان بآد بدومها سنتين كنتي آد بنوع عاوسي إن وحنجعلنا هاي مرول بفريمها صدرتان إنه واحد أتران برنامج كان أو جيبي سواء معنيه سوية هاي إن دتك فهم لجوسيو
in abaaraha marka laga digayo ay fariimaha fahmaan waxaan jeclahay in cabdulqaadir carab yaa qad kastoo ugu jira cabdiqaadir ku soo dhawaado baraarug xaggee joogtood nagala hadlaysaa عطوشو ومادسن تهي وانا دhowahay waxaan joogaa magaalada Kismaayo barnaamijkan hadda aan soo galay oo ku soo biiray marka adiga iyo asxaabta waa idin salaamaya marka Ramadaan Kariim ku soco fariin hadaad hayso hadaad fikir kordhinayso iyo hadaad su'aal weydiinayso martida caawa عطوشو horta inta badan barnaamijka waxaan u maleynayaa dadku qof walba hadalay waa laga shanqariyay wixii ma garanaysaa inta badan wax keeno faham la'aanta bulshada markay jiraan waxyaalaha sida fatahaado oo kale ama abaara markay jiraan faham la'aanta waxa keeno waa laga hadlay taas waxyaalaha talooyinka oo la sameyn karna iyadana sidoo kale marka waxaad moodaa isku meel inuu barnaamijku uu wada socdo laakiin waxa laga yaabaa qof wuxuu uu ka tagay inuu qof kale uu ku dara laga yaabaa marka inta badan horta fariimaha in la fahmi waayo waxa keeno inta badan luqadaha la adeegsado ama eray bixinta inta badan la isticmaalo waxa laga yaabaa dadka digniinaha bixinayo kale erayo humanitarian language wax la yiraahdo kale in badan la isticmaalaa la sameeyo badana oo El Niño iyo ma garanaysaa hydrological iyo erayo ama science ama humanitarian language in la isticmaalo dadka local community-ga ay fahmi waayaan taas ka mid ah waxyaalaha ma garanaysaa faham la'aanta keeno waxa kale oo laga yaabaa in ma garanaysaa fariintii inayna fariin cad ahayn lama sheegin waxa la sameeynayo xagee la aadaya goormee lama sheegayo kaliya waxa la dhahayaa waxaas jiro ama abaara jiro la filaya inay dhacaan ama maxaan ku yiraahdaa fatahaad baa jirto baa lagu soo koobaya marka fariin aan faahfaahsanayn oo kale oo faham la'aan keenta kamid ah sidoo kale warar iskhilaafsan ama been abuur oo kaleeto ama social media ha noqoto ama meelaha resource-ka oo digniinaha laga bixinayo kaleeto in ma garanaysaa warar iskhilaafsan oo dadka marka dambe gaarsiinaysa inaysan wax ku kalsoonaanba ayaa kamid ah marka sidoo kale kalsooni la'aanta oo ma garanaysaa ilaha ah marka hay'adda Sodma oo kaleeta badana digniinaha iyo waxyaalaha disasterka markay dhacayaan inta badan in xogta laga qaato ay muhiim tahay marka waxyaalahaas badana keen horto dadku wixii inaysan fariimihii fahmin ama fariimo kala duwan oo baalkii intay gaaraan ay markii dambe ay faraha ka qaadaan inay wax ku dhistaan sidoo kale waxa kamid ah dadka xataa digniinaha bixinaya ama hay'adaha bixinaya kale in mararka qaarkood fariimihii aan la cusboonaysiin mar walba xaaladdu ay isbedesho inay sii korortay inay ma garanaysaa in nuqsaantay yani waa in ma garanaysaa si constant ah bulshadii loo giray hadba ama marxaladii hadba meel ay gaartay marka fariimaha in la fahmo waa inta badan waxyaalahaas keeno haddii wax talo oo aan ku daro oo aan iraahdo ma garanaysaa talooyinka ugu fiican oo wax looga qaban kara barnaamijkaas waxaan dhihi karaa in la isticmaalo luqad ay dadka ay fahmi karaan ama dadka local community-ga ay fahmi karaan haddii meeshu ma garanaysaa af maxaatiri ama af maymay hadba bulshadaas ayada siday u fahmi karaan oo ugu fudud in wax loogu gudbiyo iyo sidoo kale erayo farsamo in aan la isticmaalin oo kuwii hadda aan sheegayo kaleeto ah oo ma garanaysaa dadka aysan fahmin sida erayo ma garanaysaa ay hay'adaha isticmaalaan oo kaleeto ama ay isticmaalaan ma garanaysaa dadka adoon academiga adoon local community-ga mar walba in wax lagu bees garay ama dadka deegaanka wixii ay fahmi karaan in ma garanaysaa wax lagu gudbiyo sidoo kale in la ma garanaysaa si rasmi ah oo ma garanaysaa looga dambeeyo dadka ma garanaysaa hay'adaha bixinaya digniinaha ama inta badan lagu report gareeyo hay'adda Sodma oo kaleeto ayadoo wakiilka ah ayadaasna xogta laga qaato wixii ay soo gudbisana dadku ay wax ku dhistaan sidoo kale in la adeegsado waxa la yiraahdo idaacadaha oo kaleeto kanaalo kala duwan oo yani lagu kalsoonaan karo dadku inta badan xoolo dhaqatada ay ama dadka beeraleyda ayo si fiican oo qurux badan baad u dhigtay waxaan jeclahay dhegaystay halkan qoraal ku soo qoray cabdiwahaab cabdiraxmaan ibraahim aad baad u mahadsantahay wuxuu yidhi cabdirasaaq catosh barnaamijkan in la joogtay ayaan jeclaan lahayn aad baad u mahadsantahay waan isku dayeynaa intii karaankeenna ah fariintaada waxaad noogu soo diri kartaa 28 eber ama su'aal ama fariin mawduucu waa ma fahamtaa marka laguu soo diro fariimaha hordhaca ah ee ka digaya abaaraha iyo fatahaadaha mar kalaan ku celinayaa lambarka gaaban eed fariinta ku soo diri karto waa golis iyo hurmuud hadba midka aad haysato 28 eber teleson haddaad haysatana 395 fariinta markaad soo dirayso waa lacag la'aan waxaan jeclahay su'aal aad u qurux badan inaan Abuukar Bedri ku tuuro Abuukarow bulshadu sidee isaga caawin karaan inay isfahamsiiyaan fariimaha marka ay soo gaaraan gaar ahaan fariimaha aan caddayn ee aan la fahmi karin aad u mahadsan tahay
taas ka hor waxaan rabay inaan horta digniinaha naftirkoodii oo wasiirkana uu ka jawaabay dad kalena ay ka jawaabeen aniga naftirkeyga aan waxyar ku daro digniintu sideedaba khiyaali ma aha diinna kama soo horjeedo in la sheego wax soo socdo sababtoo ah waa cilmi adduun iyo aakhiraba macnaha ku dhisan oo aan dembi ahayn in lagu dhaqmo tusaale soomaalidii hadda wax badanaa isbedelay laakiin hadda ayadoo digniinaha la jeedinayo waxaa la isticmaalaa teknolojiyad laakiin teknolojiyadda ka hor soomaalidu waxay isticmaali jirtay shintirin iyo xidigin wax la yidhaahdo shinkaa la tirin jiray oo dad badan oo khubaraa ilaa maanta la helaayo ayaa waxay tirin jireen shinka waktiga uu maraayo iyo xidigaha siday cirka micnaha u kala wareegayaan waxaa jira wax la yidhaahdo dirirta oo roobka imaatinkiisa iyo waktiyaday imaanaysa lagu fiiriyo todobka ayaa qayb ka ah amilada waxa la yidhaahdaa ka mid ah oo soomaalidu aaminsan yihiin hadday 15 ku martana bisha 15keedii martana macnaha ay abaar tahay hadday 16keedii martana aaran tahay marka waxaasoo dhanna cilmi la barto oo dadku ay shinka iyo xidigisku ay isla tiriyaan kadibna sahan intay samaystaan deegaanada macnaha shinka markay wixii oo dhan ay isla hubiyeen aaranka ka dhacaya loo guuri jiray ayadoon xataa abaartu imaan inta badanna saadaashaas waxay noqon jirtay wax saxa marka qofka aaminsan digniinaha inay khiyaali yihiin marka taasaan horta leeyahay tan labaad dadku waxay isaga kaashan karaan fariimaha inay isu gudbiyaan in wacyigelin arrinta naftirkeedii laga sameeyo cabdirasaaq idinkaba aad qayb ka noqotaan in dadka tusaale fariintu hadday tahay fariin qoraal ah qofka akhrin kara in lagu dhiirigeliyo hoos loogu daro haddii fariintan aad fahantay qofka walaalkaa aan fahansanayn usii gudbi oo dadka naftirkoodii lagu dhiirigeliyo inay isu gudbiyaan sababtoo ah afkay isaga sheegi karaan goobahay isugu yimaadaan ay isugu gudbin karaan markay iswaraysanayaan isxaal waraysiga isugu dari karaan marka dhiirigelintaas in la sameeyo tan kalena waxaa la abuuri karaa bulshooyinka communitieska waxaa laga dhex abuuri karaa groups isku xiran oo fariimahaas markay soo gaaraanba bulshada inteedii kale la wadaago tusaale beeraley aan idaacadba gaarin oo laakiin telefoonna haysata markii fariimo loo qoro boqolkiiba inta akhrin kartana ay aad u yar yihiin waxaa loo baahan yahay dad la dhiirigeliyey oo inta wax akhrin karta oo inta kale gaarsiisa marka in dhiirigelintaas la sameeyo geedka dadka isugu yimaadaana toddobaadkiiba mar lagu kala war qaato oo geedka wartoo kale ama geedka kale dadku macnaha garta iyo sheekada u tagaan fariimaha digniintana in lagu daro dhiirigelinta inay dadka meesha isugu sheegaan kuwii meesha isugu sheego soo gudbiyeyna aad codkoodii baahisaan si markaas ayagana ay ugu noqoto dhiirigelin kuwo kalena ay ugu noqoto ku dayasho marka waa la hagaajin karaa nidaamkaas haddii loo qalab qaato marka siyaabo badan oo dadku fariintu ay ku gaari karto kuna fahmi karaan hadday fahmi waayena lagu fahamsiin karaa jirta aadaan u mahadsantaha ustaad ha iga dheeraanin macno badan baa hadalkaaga ku jira wasiir cabdinaasir caruushaan rabaa inaan aado laakiin waxaan rabaa inaan dhegaystayaasha weydiiyo dhegaysta mobilka hadda aad haysato oo laga yaabo inaad iga dhegaysanayso fariimaha kaa kugu jira ma fahantaa haa mise maya intaas noogu soo dir cabdinaasir isla su-aashaasaan rabaa dadka sidee isu caawin karaan marka qof fariin helo fariintana ay tahay mid ka digaysa abaar ama fatahaad soo socda qofka kale ag jooga ama deriskiisa ah ama ehelkiisa ah siduu u caawin karaa حتى شو ما صمت هرت أرمها ديار جروجا أبارها إحالتها هرت وح صباها وهي على جرجر واي ديجانا ده هذا كوفرتو كله وحلاقي استعمال جر واحد بكار ضد كان مركز سنة كان وحقصه قوان وحي استعمالان وحي وسهر وحي قشجرين كيد بلوكوستي ساه أو بكار ده سمرك وحلو ديار جروب جري مركي حل أدق إماضو إلا يوجدبه marka bulshada waxyaalahan inay diyaar garoobaan dhinac markii laga fiiriyo waa dhaqankeena wax soo jireen awaaye haddana waxaa la isticmaalayaa technology iyo waxyaalo kale laakiin waxaa muhiim ah in bulshada ayaga dhexdeeda inay fariimahaas wadaagaan fariimaha waxaa muhiim ah waxaa jira bulshada dhexdeeda dad run ahaantii aad ugu fiican xogta inay bulshada dhexdeeda gaarsiiyaan marka waxaa la rabaa arrimahan diyaar garowga fariimaha bulshada in laga dhigo in heer hoose la gaarsiiyo ilaa heer degmo
degmada iyo xaafadaha dadka bulshada fariinta ay gaarsiinayso dad waxaa jira ay dadka ku kalsoon yihiin culummada in la gaarsiiyo culummada dadka ay sii gaarsiiyaan in la maro janalada saxda ah oo bulshada ay wax ku wadaagaan ama ha noqoto culummada ha noqoto ganacsatadooda ururada bulshada ay leeyihiin in bulshada saas lagu gaarsiiyo dad ay ku kalsoon yihiin inay fariinta ka maqlaan cabdinaasir caruush aad baad u mahadsan tahay dadka hadda nagu soo biiray ku soo dhowaada doodeena baraarug oon caawa oga hadlayno fariinta abaaraha ee dadka loo diro ma fahmaan dabcan adiguna fariintaada waxaad ku soo diri kartaa lambarka kaaban ee 28 eber lambar cad markaad soo dirayso fariinta waa lacag la'aan oo waa bilaash abukar bedri ibraahim ayga dheeraan afgood joogta abukar bedri ustaadi soomaaliyaad la macaamilaysay weriyaad ahayd maraad raadiya ka hadlaysay iyo maraad war u akhrinaysay iyo mar fariin iyo wacyigelinba aad ka shaqaynaysay inta way isugu jirtaa sawirrada iyo muuqaalada ma caawin karaan dadka in la fahamsiiyo fariimaha digniinaha su-aashaas waxaan jeclahay si fiican inaad u sharaxdo mar kalean ku celinayaa fariimaha qoraalka waa la gartay in fariin ka digaysa abaar ama fatahaad muuqaal ahaan ama sawir ahaan loogu gudbiyo ma caawinaysaa qofka cabdirasaaq aadaa u mahadsan tahay sawirka mar walba wuu ka xoog badan yahay qoraalka sababtoo ah qoraalka qofku wuxuu u baahan yahay inuu akhriyu fahmo laakiin qof kastoo bini aadam ah sawirka markuu arko ugu yaraan sawirka wax uga dhex muuqduu fahmaya ujeedka laga leeyahay hadduusan fahmin xataa markaas waxaa laga yaabaa inuu dadka intuu tusuu yidhaahdo fariintaana ii soo dhacdee maxaa loola jeedaa qoraal keliya markay tahay laga yaabaa inaysan dad saas u fahmin sababtoo ah muuqaalka hadduu video yahay wuu ka xoog badan yahay muuqaalka oo sawirka ah sawir caadi hadduu yahay wuu ka xoog badan yahay labadaba markii fariin gudbin la yidhaahdo aaday ugu xoog badan yihiin sababtoo ah adiguna saxafiyaa tahay waxaa la yidhaahdaa hal sawir ayaa wuxuu gudbin karaa fariin u dhiganta 1000 eray marka saas la leeyahay 1000 eray oo fariin ah markaad gudbinayso waxaa laga yaabaa inay ka badan tahay ama ku dhowdahay 6 7 8 page oo documenti ah cid akhrinaysa male laakiin hal sawiraa laga yaabaa intaas isha ku dhufashada inuu ku gudbiyo oo qofka maskaxdiisaba haddii ay aragto sawirka ay qaadato fariintii 1000 eray la ekeyd marka sawirada iyo muuqaaladu way ka xoog badan yihiin cod keliya markii dadka loo diro way ka xoog badan yihiin markii loo diro qoraal keliya marka qoraalka waa muhiim sababtoo ah dad aan haysan telefoon ay sawir ka fiirsadaana jira codka waa muhiim sababtoo ah dad aan tv helayn oo facebook helayn oo aan telefoon macnaha wax laga fiirsan kara helayn ayaa necla intay soo qaataan idaacadda ka dhegaysan kara marka fariimaha codka ah waa la diri karaa way fiican yihiin kuwa qoraalka waa fiican yihiin laakiin sawirada ka xoog badan markii xataa bulshada inay fariimaha isu turjunto oo ayada iscaawiso ay tahay fariinta sawirka ah ama muuqaalka ah ka xoog badan fariinta kale fariinta muuqaalka waxaa lagu gudbin karaa xaaladda qofka lagula hadlaayo dadkii ay saamaysay sawirada laga soo qaaday qofka bini aadinka markuu arko marka qof kaloo duruufaysan asaga wuxuu iska soo qaadayaa qofkii oo kale wuu la damqanaya damqashadaas waxay gelinaysaa marka inuu is yidhaahdo wartan oo kale yay kugu dhicin uu qaato marka mar kastaba sida aad ii weydiisay ama warbaahinta warka lagu gudbinayo ha ahaada ama fariin ha ahaade muuqaalku ama sawirka wuu ka xoog badan yahay codka keliya ama qoraalka keliya marka taas waa arrin u fiirsasho u baahan bulshadana in wax loogu sheego mar walba loo baahan yahay aad baad u mahadsanta ustaadi ha iga dheeraanin aad baad u mahadsan tahay waa ku soo noqon doonaa waxaan jeclahay barnaamijyadan raadiyaasha soomaaliya markay ka baxaan dhegaystayaasha fariin bay soo diraan waan idinkaga mahad celinaynaa fariimihiina waan aragnay mid ka mid ahaan rabaa inaan tusaale u soo qaato idaacadda gobolka bari fariin ka baxday ama barnaamij ka baxay ayuu dhegaystahan ka soo jawaabay magaciisu waa maxamed cabdiqaadir gobolka bari buu joogaa wuxuu yidhi fariimaha digniinaha ee la xiriira abaaraha iyo fatahaadaha ee ka imanaya hay-adaha ku lug lihi run ma ahan waayo qaybka alle unbaa yaqaana oo og waad ku mahadsantihiin fariimaheena waxaan rabaa abukar bedri dhegaystaha fikirkaas aaminsan jawaabtaad u haysa maxay tahay dhegaystaha fikirkaas aaminsan waxaan u hayaa sideedaba ilaahay subxaanahu watacaala asaga ayaa bini aadam ka siiyey caqliga iyo ilhaaminta intaba
tusaale yaraan ku siinaa markuu wasiirka lahaa dadka bakaaray duugan jireen bakaarta in la duugto waxay ka soo bilaabatay ama ka horreysaa inta bini'aadinka jiray oo macnaha dalag la beeran jiray way jirtay laakiin haddana markii la yidhaahdo goormee rikodka ay gashay qur-aankaa noo sheegaya haddii aad aragtid tusaale suuratu yuusuf nebi yuusuf calayhi salaam markii uu masar tegey oo boqorkii masar uu ku riyooday 7 saacad oo cayilan oo 7 caata ay cunayaan iyo 7 sabuul oo cagaaran iyo 7 engegan oo uu yiri qolooyinkii saaxiriinta ahaa iyo kuhaanadiisii ii turjuma loo turjumi waayey nebi yuusuf calayhi salaam oo wiil yaroo xabsi ku jira ayaa nin hore uu riyadii ilhaamkeedii ama turjumaadeedii ugu sheegay ayaa yidhi anaa u tagaaya nebi yuusuf marka meesha ugu dan leeyahay waxay tahay aayadda qur-aanka dhegeyso wuxuu dadka kula talinayay inay 7 sano oo soo socoto aaranka uu jiro waxooda in yaray ku noolaadaan maan inta kale inay duugtaan oo sabuulkoodii lagu duugo ayuu macnaha dadku u sheegay wuxuu leeyahay qaala tazracuuna 7 siniina da'aban famaa xasadtum fadaruuhu fii sumbulih fiiri famaa xasadtum fadaruuhu fii sumbulih ilaa qaliilan mima ta'kuluun marka ninka dhahayo waxaan waa khiyaali qarnigii nebi yuusufaa dadka u sheegay inay abaar soo socoto 7 sano aaran inay gelayaan 7 abaara imaan doonto 7dan wixii la beeray in sabuulkoodii lagu macnaha bakaar lagu geliyo si 7 abaarta ah looga gudbo wayna dhacday oo waa ku gudbeen oo hadda masaarida taariikhdaas qur-aankan uu sheegaa taariikhda masarna waa ku qoran tahay marka digniinaha oo saadaasha lagu sheegayo wax dembi ah ma aha wax diinta ka soo horjeeda ma aha waxay diinta ogoshahay waaye dadkana inay ku camal falaana la rabaa qofka aaminsan waa khiyaali qadarta kugu dhacaysa waa kuu qoran tahay qadarta kugu dhacaysa waa kuu qoran tahay ilaaha qoray qadarta ilaahi qoray qadarta wuu bedeli karaa laylatul qadriga haddaa ilaahay tuugtid cimrigaagaa lagu kordhin karaa 40 sano adoo kuu qorneeda 60 ilaahay kaaga dhigi karaa 100 kaaga dhigi karaa dadku waxay aaminsan yihiin qadarta lama bedelo qadarta ilaahayaa sameeyey ilaahayaana bedelo marka haddii aad dadaashid oo aad macnaha saadaasha ishintiriska iyo xidigiska ayadoon qaab sixira loo isticmaalayno qaab looga faa'iidaysanayo cilmi ahaan haddii lagu soo gudbi jiray haddana teknolojiyada sheegayso waa tiyo kale saadaashu waa sida ay u sheegto mar walba 99.9 waxyaabaha saadaashu sheegto waa dhacaan laakiin dadku mararka qaar fariinta loo gudbiyey oo marin habaabiso ayaa laga yaabaa inay qalado fariimaha hadday sax yihiin saadaashuna ay saxan tahay in lagu camal falo waa waajib qofkan ku camal falin naftiisa wixii ka soo gaaray aakhiro waa loo haystaa abukar aad baad u mahadsantahay waxaan jeclahay maxamed axmed dirir oo fariin noogu reebay facebook inaan akhriyo maxamed wuxuu yidhi mar walba sawirka iyo qoraalka waxaa ka qeexid fiican sawirka waayo qof wax akhriya iyo mid aan wax akhrininba way fahmi karaan maxamed aad baad u mahadsan tahay waxaan jeclahay injineer axmed cabdiina u baaqo axmed cabdi soo dhawow xageed nagala hadlaysaa oo joogtaa maxaase barnaamijka ku darsan leed halkuu marayo waa mahadsantahay catoosh waa la maqlaa soomaa si fiican ku soco catoosh aad u mahadsantahay sidoo kale wasiirka waa salaamaya walaalkay bedri iyo injineer ibraahimba waxaan joogaa magaalada muqdisho waxaan ka mid ahay beeraleyda soomaaliyeed ee gobolka shabeellada hoose xaqiiqatan waxaan doodan guud ahaan oo arrimaha la xiriira saadaasha iyo digniinahaba waxaan dareemayaa sanadahan dambe inay bulshada Soomaaliyeed ay la soo qabsanayseen waxaana inta badan bulshadeena tarbiyeeyay ama baray duruufihii iyo culaysadii kala duwanaa isugu jira fatahaadaha iyo abaaraha ku dhacayay kaliya waxaan ku darayaa barnaamijkaani warka nuxurkiisa Badri iyo wasiirka ayaa sheegay injineerka la joogaba kaliya waxaan inaan ku daro in bulshada Soomaaliyeed inteeda ugu badan reer miyiga ah ama dadka ku nool miyiga fog oo aaminsan in cilmu qaybka uu yahay wax Ilaahay subhanahu qaadirka kaliya waa cilmu qaybka laakiin aan saadaasha iyo fariimaha diiba gaaraan ana waxba ku qaadan in sidaas ka dhow looga sii dhaadhiciyo loo sameeyo tababaro iyo wacyigelin oo maxaa loo yaqaan bulshada si yacni wax looga qabso waxa kale oo ku daraya kaliya aan rabaa inaan ku taakiidiyo waxay u baahan yihiin digniino kaliya uma baahno fariimaha iyo in looga digo dadka fatahaadaha iyo abaaraha waxa kale oo baahan yahay dadka resiliensiga loo tababaro in yacni bakaarihi la soo celiyo raashinka la keysado in calafkii la diyaarsado la keysado in yacni la beeqaamiyo waxa dadka
dadka markaas ay haystaan iyo in cunadii la qalajisto waxyaalahaas oo dhan waxyaalaha keenayo hadhowdii in dadka ay helaan keed cuno ha noqoto maxaa loo yaqaanaa farsamooyinkaas oo dhan dadka waa ka ildiran yihiin marka waxaan qabaa arrimahaas oo dhan waxay keenayaan dadku in xilliyada jiilaalka ama abaaraha ama fatahaadaha aysan si degdeg ah macluul ugu dhicin oo abaartiisa 100% u saameyn marka arrimahaasna waxaan dhihi karaa doodaha noocaasna waxaa leeyahay Catoosha oo kusii dhawow waana maasantay insha Allah wixii kaloo caqli aqoon meesha ka korsano maasantay injineer axmed cabdi cusmaan aad baad u mahadsan tahay waxaan jeclahay inaan u baaqo ibraahim maxamuud balse waxaan marka hore u mahadcelinayaa dadka idaacadaha fariimaha noogu soo gudbiyey idaacadda radio idaacadaha ku yaala magaalada muqdisho gobolka banaadir gedo idaacadda kismaayo ku taalla garowe boosaaso gaalkacyo dhammaan dhegaystayaasheenna barnaamijkan caawa markuu baxo aan berrito raadiyaha ugu gudbino waad mahadsan tihiin fariimihiinana waan helnay in badanna waan idinkaga mahadcelinaynaa ibraahim su-aasha waxaan rabaa inaan ku weydiiyo afgooyaa joogtaa dabcan beeraleyaa tahay sideed u caawin kartaa qofka beerta agtaada falaya ee aan fariinta fahmi karin Catoosha aad u mahadsan tahay su-aasha ah sidee qof loo caawin karaa oon fariimaha aan fahmayn ama fariintaba ay gaarina laga yaabaa runtii waxaa isleeyahay taas waxaa meesha doorka waxaa kasoo baxaya dadka aqoonyaanka ah oo weliba beeraleyda ah waxaa jira beeraley badan oo aqoonyaan ah oo run ahaantii keliya aan ku ekaanin fariimaha loo soo dira ee fariimo ayaga raadiyaan baaraan fariimo maaragtay online-ka yaala ama meel kale lasoo dhigo oo la xiriira cimilada iyo waxyaabaha digniinaha abaaraha iyo fatahaadaha run ahaantii taas qofka aqoonyaanka waxaa u sahlaysaa inuu fariinta u gudbiyo qofka maaragtay aan maxaa la dhahaa aqoonta aan lahayn ama fariinta ay gaarin run ahaantii aniga iyo inta ila mid ahaba maaragtay oo beeraha baratay beerahana ka shaqeeya run ahaantii annaga maadaama filligiina aan ku jirno waxaa inoo sahlan in qofkii sidii u fahmaya inaan fariinta u gaarsiino tusaale haddaan soo aragno ama aan soo akhrino warbixin sheegaysa in fatahaado ay kusoo wajahan yihiin webiga ama abaare ay soo socoto waxaa inoo sahlan inaan u gudbino qofka beeraleyda ah oo aan fariinta helin ama maaragtay fariinta aanan akhrin karin oo kale inaan u gudbinaan tiraahdo waxaas baa soo socda maaragtay taxadarkaaga muuji ama kasii baaraan deg wax dhici doona hadhow run ahaantii waxaan rabay inaan sidoo kale ku daro waxyaabaha sahlaya in fariinta lasii gudbiyo oo dadka sii caawiyo waxaa ka mid ah oo runtii dowladda iyo maaragtay dhammaan hay-adaha inay la rabo inay maaragtay aad uga taxadiraan oo ah number one fariimuhu bulshada dhinacyo kala duwan bay runtii fariimaha ka gaaraan oo tusaale fariimaha keliya in lagu koobin in taleefanada iyo idaacadaha laga gudbiyey in la weyneeyo ama la baahiyo tusaale masaajidoo gale in lagu gudbiyo culimmadoo kale fariimaha maaragtay loogu dhiibo la yiraahdo bal dadka u sheegay inay abaaro soo socdaan ama maaragtay fatahaado la filaayo sidoo kale beeraleydu badanaa waxay u samaysan yihiin koox ama si loo yaqaan cooperative ama iskaashatooyin in fariimaha loogu dhiibo iskaashatooyinkaas ayaga ay usii gudbiyaan runtii taas waxay caawinaysaa fariintu meel fog inay gaarto meel uu maaragtay idaacaddana gaari karin maaragtay taleefonkana uusan gaari karin inay gaarto si sahalna loo fahmo dadkaana ma ogtahay waa isku luqad qofkan qofka u dhow waa qof uu fahmi karo uu fariintiisa maaragtay u gudbin karo marka waxaa isleeyahay meesha doorka ugu muhiimsan oo maaragtay ka qayb qaadan karo in qof kale fariin loo gudbiyo waa doorka aqoonyaanka ayagiina maaragtay inay fariinta usii gudbiyaan beeraleyda aadaan u mahadsantahay waa mahadsan tahay barnaamijkeena baraarug waxaan idin xasuusinaynaa fariinta gaaban inaad noogu soo diri kartaan 28 eber fariinta markaad soo dirayso waa lacag la-aan waan idinkaga mahad celinaynaa fariimaha aad raadiyaasha usoo dirtaan ee barnaamijkan marka uu ka baxo iyo kuwa aad halkan kusoo qortaanba sacaadatu wasiirka gargaarka iyo kahortagga masiibooyinka koonfur galbeed ila fadhiya ma isleedahay muwaadiniinta markay rabaan inay isu diyaariyaan khataraha ka iman kara abaarta iyo fatahaadaha inay u baahan yihiin inay la wadaagi karaan hay-adaha iyo xafiisyada ay qusayso wax markaasi ay qabaan fikirka uu qabo tusaale ahaan baydhaba idinka xaruntiina tahay qofka baydhaba jooga ama beeraley ah ama xoololey ah walwalka uu qabo ma caawin kartaad leedahay inuu loo xiriiro hay-adaha iyo dowladdaba arrintaas waa arrin run ahaantii muhiim ah maadaama dowladda ay mas-uuliyad ka saaran tahay dadka inay adeeg u sameeyaan hay-adihina ay dowladda ku kaalmeynayaan in adeega dowladda laga rabay ay fuliyaan waxaa mar walba muhiima in ay kaalin muhiima ka ciyaaraan annaga waxaan nahay heer state aan nahay in stateka awoodda waxyaalahan u diyaargarowga ka jawaabidda arrimahan oo kale in hoos loo gudbiyo oo heer degmo laga dhigo oo degmada iyo xaafadaha lagala shaqeeyo sidii arrimahaas uga jawaabi lahaayeen maxaa yeele bulshada
waa in adeegga loo gaarsiiyaa meesha u dhow oo ay ka faa'iidaysan karaan tusaale ahaan annaga baydhabo ama magaalooyinka waxaan ku dadaalnaa magaalo kasta inay yeelato guddiyo arrimaha degdega ah oo guddoomiyaha degmada uu guddoomiye ka yahay culammada qayb ka yihiin ganacsada qayb ka tahay haweenka dhallinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshadana ay qayb ka yihiin laakiin waa in bulshada ay mar walba u haysataa dowladda ama dadka adeega bixinaya in ay si toos u wada xiriirayaan oo xiriirkoodana uu yahay xiriir toos ah mar walbana dadka laga qayb geliyo talooyinka maxaa yeele bulshada mar walba markay culaysyo imaadaan halka inta badan bulshada dhexdeedu ku jira taasna in xoogga la saaro waxyaalahaas waxyaalaha run ahaantii annaga aad u dadaalno in arrimaha gargaarka iyo jawaabistiisa mar walba inuu noqdo heer degmo ama wax kasii hooseeya waa mahadsantiin aad baad u mahadsantaa waxaan idin xasuusinayaa dadka ay abaaruhu saameeyeen ee idaacadaha naga dhegaysanaya ee barnaamijkan ku taxan haddii magaalo aad soo gaartay waxaa laga yaabaa magaaladaas inaad caawimaad ka heli karto xafiisyada dowladda iyo hay-adaha abaarahan ku taxalluqa ee ka shaqeeya dadkana caawiya sida WFP hay-adda cunnada adduunka UNICEF hay-adda carruurta FAO oo beeraha ka shaqaysa Save the Children iyo CARE mar kale aan ku celiyo hay-adahaasi dadka ay abaaraha saameeyeen ayay caawinayaan fadlan xafiisyadooda caawimaad ayaad ka heli kartaa Abubakar Albedri waxaan rabaa inaan su'aal ku weydiiyo wasiirkana uu si fiican u dhigay su'aasha waxay ku leedahay bulshada aragtidooda iyo caawinaad ay u baahan yihiin sidee ula wadaagi karaan hay-adaha samafalka iyo xafiisyada ay qusayso ustaad Abubakar aada u mahadsan tahay wasiirkii gargaarka ayaa meesha ku jira waxaa laga hadlayay ama magaca sodma meesha laga sheegay idinkoo hadda fariimihii iyo sida bulshada loo gaarsiin karo dadaalkeedii wadaa meesha ku jira horta waxaa loo baahan yahay wax la yidhaahdo xiriirin ama xiriir inuu jiro oo dhinaca bulshada micnaha lala xiriirayo iyo maamulada ay hoos imaadaan iyo hay-adaha ama warbaahinta doonaya inay dadkaas ka caawiyaan inay warka ama fariimaha digniinta ah waqti ku habboon ay helaan si ay go-aan ugu qaataan oo ay markaasi naftoodii iyo xoolahoodii ugu badbaadiyaan tan koowaad waxaa waaye in wasiirkoo kale hadda koonfur galbeed uu wasiir u yahay in wasaaraddiisa ay ku dhawaaqdo xafiis ay dadka la soo xiriiri karaan oo nambarkiisa oo xafiiskaas lagala soo xiriirayana ay macnaha fariimaha la gudbinayo lagu daro oo la leeyahay haddii aad macnaha xaalad dareemaysid ama saas ay jirto meeshaas la soo xiriir noo soo gudbi macluumaadka waxyaabaha marka dadka toosay waxay ula soo xiriirayaan xafiisyadaas idinkoo kale hadda nambarada aad naadiseen idinkugu soo dirayaan dadka dabcan fariimaha gaaban ay kusoo qorayaan laakiin waa inta wax qori karto ama nambar haysato laakiin markii maamulku uu xafiis u cayimo oo uu dhaho meeshaas ha lagu soo aadiyo wixii macluumaada ama ha la soo xiriiro xafiiskaasaa dadka ama xog siin kara dadka u baahan in macnaha xog dheeri ay helaan ama tan ay hayaan kusoo hagaajinayaan labada macnaha dhinacdana waa faa'iido badan u leeyahay marka waxaan leeyahay maamuladu hadday leeyihiinna ha xoojiyaan oo wax la yaqaanaha ka dhigaan haddaysan lahaynna koonfur galbeed oo wasiirkeeda nala jooga ha ka bilaabato dowladda federaalka macnaha waa ogahay haddii hadda la dhaho ma leedahay waa leedahay la iska dhihi doonaa laakiin ma laha meelay dadka inta la xiriiraan xaaladahooda dhibaatada iyo wax ay wajahayaan ay ku sheegaan oo xafiis dhexa ah marka xiriir dhexe ha la sameeyo oo bulshadu ay aaminaysay la soo xiriiraysay og tahay ciddii maamulka ahayd inay telefoonkan qaban doonto ustaadi aad baad u mahadsan tahay gebagabadii aan soo gaarnay dalaga qofka nin baa fikir fiican soo qoray halkan oo uu leeyahay dhamac haji wuxuu yidhi dhamac haji daahir dadka abaaraha la ildaran fariimaha waa in la gaarsiiyaa hab maqal iyo muuqaal ah dadka xoololeyda ah ama dhaqaatiirta xoolahana waa in barnaamijkan wax laga siiyaa maadaama door weyn ay ku leeyihiin waad mahadsan tahay ayuu yidhi aad baad u mahadsan tahay dhamac ha daahir ninkay ugu qoran tahay fariin qurux basanan baad soo dhiibtay adigana fariimahaaga waxaad noogu soo dari kartaa lambarka gaaban 28 eber ama 395 fariinta markaa soo dirayso waa lacag dhammaantiin waan idin mahad celinayaa cabdinaasir cabdi caruush wasiirka gargaarka koonfur galbeed abubakar albedri ustaad khabiir saxaafadeed iyo ibraahim beereley afgooyo jooga tan iyo kulankeena kan xiga waa bahdi baraaru anigu cabdirasaaq catoosha cabdifataax cabdulle
farsamo yaqaanka oo ila fadhiya waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo mahadsanidin dhammaan shaqo fiican aad qabatay